Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibadeeda qiimaha leh, waxaan rajeynayaa inaad nabad qabtaan. Maxaad kala socotaa kombiyuutarada leh caqliga macmalka ah? ChatGPT wuxuu ka mid yahay kombiyuutaradaas leh caqliga macmalka ah ee casrigan jira. Wuxuu leeyahay xasuus sida xasuusta aadanaha oo kale. Dadka ka faallooda programming-ka waxay ku sifeeyaan xasuusta uu ChatGPT leeyahay mid u dhiganta arday caafimaad barta oo maraya sanadka saddexaad ee waxbarashada jaamacadda. Bal suurayso arday caafimaad barta heerkiisa aqooneed iyo midka maskaxeed intuba. ChatGPT waxaad weydiin kartaa su'aal alla su'aasha aad rabto, wuxuuna kugu jawaabi doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan, asigoo si toos ah kuu siin doona jawaabta aad rabtay. Waxyaalaha cajiibka ah ee ChatGPT-gu ku dheeryahay waxaa ka mid ah in uu xasuustiisa ka faa'iidaysto marka aad weydiiso su'aal aad horay u weydiisay oo kale. Muuqaalkan ayaan kugu faaqidi doonaa sida ay u shaqeyso ChatGPT. Magacaygu waa Yaxya Cabaas, waxaan ahay content creator. Haddii ay tahay markii kugu horeysay aad channelkayga soo booqato, fadlan subscribe ii saar, share garee oo saaxiibadaada la wadaag, muuqaalkana like inuu saar si uu dad badan u gaaro. Mar kale kusoo dhawaada muuqaalkeenii ku aadanaa kombiyuutarada leh caqliga macmalka. Waxaan ka naqaanaa ChatGPT. ChatGPT waxaa laga soo gaabiyey Generative Pre-training Transform. Waa nooc ka mid ah luqadaha programming-ka oo si iskeeda u taagan una shaqeysa si qoto dheer si ay u soo saarto qoraal u eg kan aadanaha oo kale. ChatGPT waa GPT-ga saddexaad oo la hormariyey oo leh nooc ka mid ah noocyada luqadaha waaweyn. Waxaa soo saaray shirkadda loo yaqaano OpenAI taariikhdu markay ahayd November 2020. Aaladan casriga ah oo leh caqliga macmalka ama garaadka macmalka ah waxaa lagu dhisay dusha sare ee qoyska OpenAI. Haddaba sidee u shaqeysaa aaladan casriga ah ee ChatGPT? Aaladan waxay u shaqeysaa ama waxaa in badan loo ekeysiiyey wada sheekeysiga si qaab bini'aadan oo kale ah, ayadoo aaladan kuu suurtagelinaysa inaad hesho xogta ugu dhow iyo sida ugu fudud marka aad wax weydiinaysid. Tusaale, marka aad weydiiso waa maxay loogo ama sumad, waxay ku siin doontaa jawaab la mid ah jawaabta uu ku siin lahaa qof designer ah ama yaqaano waxa la dhaho loogo iyo sida ay ganacsigaaga muhiim ku tahay. Waxaan ula jeedaa marka aad su'aal weydiisid ChatGPT oo aad dhahdid loogo maxaa la dhahaa, angala badan wax ma kaa tusahay, laakiin wuxuu ku siinayaa jawaabta uu ku siin lahaa qof designer ah oo kuu sharxi kara waxa loogala dhaho iyo sida ay muhiim ugu tahay ganacsigaaga. Sidaas oo kale, haddii aad weydiisid su'aalo cilmi ah, tusaale ahaan dadka IT-da barta, gaar ahaan kuwa programming-ka aad u xiiseeya, aaladan aad bay u anfacaysaa. Waayo marka uu qofka rabo programming in wax la mid ah inuu weydiiyo, waxay u sameynaysaa koodka uu rabay. Tusaale haddii uu dhaho igu caawi kood ku aadan maxaa la lahaa application ama Android ku aadan igu caawi, markuu dhaho waxay u diyaarinaysaa kood dhammaystiran oo uu ku dhisi karo application Android iyo iOS wixii la mid ah. Sidaas darteed kaliya waxay uga baahan tahay inuu waxyaalo yaryar uu application-kiisa dhammaystirayo inuu ku daro. Waa waxyaalaha gooniga la tahay ChatGPT. ChatGPT kaliya waxay jirtaa in ka yar muddo 3 bilood, waxayna noqotay midda ugu saameynta badan marka loo eego artificial intelligence kale ee dunida ka jira. Aaladan casriga ah waxay uga duwan tahay aaladihii hore sida GPT-ga saddexaad. Aaladan ChatGPT marka hore ayada waxaa loogu talagalay kaliya in ay ku shaqeyso qoraal, waana sababta keentay in ay jawaabaha ay bixinayso ay noqdaan kuwa si fudud aad ku maareyn karto. ChatGPT waa barnaamij la iskugu keenay awoodo dheeri ah oo kaa caawinaya hab qoraalka, sida inay kuu qorto heesaha, rubaayadaha, sheeko xiriirooyinka iyo su'aalaha ardayda ay qabaan ee ku aadan imtixaanada, sida ay awood ugu leedahay celcelis ahaan inay bixiso jawaab u dhow jawaabta aad filaysay ee ku aadaneyd imtixaankaaga. Marka la qeexayo awoodda maskaxeed ee ChatGPT, waxaa la dhahaa wuxuu fahan ahaan la mid tahay arday barta caafimaadka oo maraya sanadka saddexaad ee jaamacadda. Maxay ku kala duwan yihiin Google iyo ChatGPT? Si aan ognahay, Google markaa wax ku qorayso oo tusaale ahaan aad dhahdid waa maxay accounting, waxaa inta badan laga yaabaa in uu kuu soo bandhigo
intaasoo mowduuc oo kala duwan. Wuxuu kuusoo bandhigayaa wax accounts kaaga dhow iyo wax accounts dhinaca kasoo galaya ayuu kuusoo bandhigayaa si direct ah su-aasha markaaga jawaabayo. Halka ChatGPT marka aad weydiisid oo dhahayd waa maxay accounting, wuxuu kuugu jawaabayaa si in aad su-aashaas weydiisay qof accounting ku shaqeeya ama wax badan ka yaqaan. Dhinaca kale haddii aan u dhigno, haddii aad macallin dhahdid waa maxay accounting, macallinkaas dhinacyo badan waxbuu kaa tusaa, laakiin wuxuu ku siinayaa su-aasha saxda ah si direct su-aasha kaaga jawaabaya. Marka ChatGPT Google waxay ugu duwan tahay. Google markaa su-aal weydiisid oo aad dhahdid what's accounting, waxaa laga yaabaa intaasoo websiteyo inuu ku siiyo oo accounting ka hadlaya, laakiin ChatGPT waxay ku siinaysaa sharaxaad ballaaran, waxay ku siinaysaa faahfaahin, laakiin waxay si toos u galaysaa su-aasha aad weydiisay ee ahayd ChatGPT. Farqi u dhexeeya ChatGPT iyo accounting waa falcelinta iyo xasuusta. Waayo marka aad weydiisay ChatGPT waa maxay accounting markaad dhahdid oo uu kuu sharxo, waxaad awood u yeelanaysaa wuxuu kuu sharxay inaad su-aal kasii weydiisid, laakiin Google fursad uma helaysid wixii uu kuusoo bandhigay inaad su-aal kasii weydiisid. waa farqi u dhexeeya ChatGPT iyo Google. Google waxaa looga fiican yahay dhanka xasuusta iyo inuu su-aasha diiradda saaro. Waxay la tahay qodobkan oo farqi u dhexeeya Google iyo ChatGPT inaan ayadana isla fahanno. ChatGPT maxay ku liidataa oo ilaa hadda la tijaabiyey? ChatGPT nuqsaanta ay leedahay waxaa ka mid ah in aan lagu isticmaali karin ama lagu access garayn karin wadamada qaar sida dalkeena Soomaaliya. Waxay ku leedahay marka aad rabtid inaad isticmaashid ama website-keeda booqatid, waxay ku leedahay wadankan kuma shaqeyno ama ma ku suurtagelayso inaad ku isticmaashid sababo security ahaan oo jira awgeed. Marka waxaa meesha kaaga cad in aysan gaarin levelkii ay gaareen sida Google iyo Microsoft Bing. Inkastoo ay ayada awood u leedahay haddii aad ku daydid qaab oo VPN oo kaleente haddii aad rabtid inaad ku tijaabisid, maybe waa laga yaabaa in ay ku suurta gasho inaad ku isticmaashid. Sidaas la mid ah, inkastoo ay saameyn badan ku yeelatay soo bandhigisteeda kadib in dunida oo dhan ay qabsatay, haddana waxyaalaha ay ku liidato waxaa ka mid ah inaysan update u ahayn sidii update ay u yihiin oo kale Google iyo Microsoft Bing. Waayo Microsoft Bing waxaad helaysaa nus saac ka hor ama daqiiqada ka hor wixii dunida ka dhaca oo kale, laakiin ChatGPT ayada waxaa lagu install gareeyey oo lagu sameeyey wixii ka dambeeyey 2021. sidaas darteed waxyaalaha qusulka leh waxaa ka mid ah in ayada ay u diiwaangashan tahay weli inuu dalka Soomaaliya madaxweyne ka yahay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba haddii aan ogaanay weaknesska ChatGPT maxay ku fiican tahay oo la dhihi karaa waxyaalahan ayay ku fiican tahay oo lagu dooran karaa. Waxyaalaha oo ku fiican tahay waxaa ka mid ah marka aad rabtid inaad assignment xalisid ama assignment lagu soo diro waad ku xalisan kartaa. Tusaale ahaan oo kale dadka IT-da barta waxay ka caawin kartaa inay u diyaariso kood alla koodka ay rabaan inay u rangareyso ee u diyaariso. Sidoo kaleente marka aad tahay qof cayiran oo kale oo aad u baahan tahay in diet lagu qoro, kaliya waxaad sheegaysaa miisaankaaga, da'daada iyo waxa aad rabtid, dan ayada waxay ku diyaarinaysaa dietka kugu habboonaa aad isticmaali lahayd ayay ku diyaarinaysaa. waxyaalaha kale Google ugu fiican tahay waxay tahay Google markaad dhahdid diet oo waxaa rabaa oo katin ama miisaan iska dhimaa markaad dhahdid waa mowduucyo kala duwan oo kala daadsan oo aan nidaamsanayn ayay ku siinaysaa. Laakiin ChatGPT-gu wuxuu ku siinaysaa wax nidaamsan oo kooban oo faahfaahsan oo haddana isku aruursan oo aan kala daadsanayn oo mowduucyo kala duwan aan ahayn. waxyaalaha ay ugu fiican tahay ayay ka mid tahay. sidaas darteed ChatGPT processka ku socda oo 3 bilood hadii ay jirta wax badan oo lagu qabtay way jirtaa, laakiin waxaan is leeyahay haddii ay sii horumariyaan oo ay gaarsiiyaan wadan walba in laga isticmaali karo, waxay noqon doontaa in laga maarmo isticmaalida Google. waayo haddii aad helaysid meel mowduuc walba aad raadinaysid kuusoo koobaya, waxaan is leeyahay Google waa laga maarmi karaa. waqti badan ayay qaadanaysaa, waayo ChatGPT-gu updating badan ayuu u baahan yahay ku aadan
in lagu kaydiyo xog walba oo markaas dhacdo kale. Waxaan isleeyahay faa'iidooyinka uu soo kordhiyay artificial intelligence ama computerka macmalka oo caqliga macmalka leh, waxyaalaha faa'iidada leh oo soo kordhiyay waxaa ka mid ah ChatGPT. Waxaan halkan kusoo afmeerayaa muuqaalkeenii maanta ee ku saabsanaa aaladda casriga ah ee ChatGPT-ga oo noqotay aaladii ugu horeysay ee leh garaad macmal ah ama ku shaqeysa computerka leh garaadka macmalka ah ama waxaa loo yaqaano artificial intelligence ee dunida sida weyn u qabsatay. Waa barnaamijkii ugu horeeyay ee artificial intelligence ah oo la dhihi karo saameyn si siman ayay dadka saameyn ugu yeelatay. Marka hore waxaa la soo saari jiray robot oo maqaayadaha ka shaqeeya, isbitaallada ka shaqeeya, shirkadaha ka shaqeeya, laakiin specific meel ayuu saameyn ugu yeelan jiray. Halka ChatGPT-ga aad u maleyso in uu kaafiyey guud ahaan dadweynaha ku nool dunida inteeda kale. Haddii aad muuqaalka ilaa heerkan inala soo gaartay, waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Fadlan like saar muuqaalka, saaxiibadaada nala wadaag, aragtiyaadana qaybta faalada inoogu reeb. Subxaanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an laa ilaaha illaa anta, astaghfiruka wa atuubu ilayk. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.